shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa abaalmarintii ay ugu tala gashay dhamaadka sanadkan 2016 oo 4 gaari oo noocoodu yahay Mark Egas iyo 90 milyan oo Somaliland shilin ah ay macaamiisha gobolka Saaxil ugu soo bandhigtay goobaha ay ku kulmaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera. Goobahaasi oo lagu qabtay bakhtiyaar nasiib kooban oo ay tartan ugu galeen dadweynihii joogay. Maamulka shirkadda Somtel ee magaalada Berbera Jaamac Cabdilaahi Salamaan ayaa ka warbixiyay ujeedada bandhigan ay shirkadu u sameynayso. hadday tahay abaalmarino maalinla hadday tahay abaalmarino bila iyo hadday tahay abaalmarino sanadlaaba taas oo keentay in shirkadu ay yeelato macaamiil waaweyn ku yeelato gobolka Saaxil oo kala duwan oo marka ay noqoto shirkadii bulshadu lahayd shirkadda waxa loo yaqaan shirkadda ay bulshadu leedahay ee dadku leeyahay kan maanta loo socdo oo ah kii aynu iminka soo bixinay ee ah abaalmarintii bakhtiyaar nasiibka ahayd iyo kan kale ee sanadlaha ee bisha December aynu qaban doono baabuurta iyo waxa kale oo badanna gobolku insha Allah qaybtiisa weyn buu ka qaadan doonaa. Madaxa suuqgeynta shirkadda Somtel Khadar Cabdiraxmaan ayaa isaguna goobtaasi ka sheegay in shirkadu ay dadweynaha wax ku soo celiso. waxa weeyaan abaalmarintii sanadka ugu qaalisanayd oo ah abaalmarinta sanadka iyo Somtel abaalmarintan waa mid aan ugu talagalay in aanu macaamiishiida ku celino qayb kamid ah faa'iidada waa in gawaridii ugu dambeysay oo ah Mark Egas in 4 gaari bay shirkadda Somtel soo bandhigtay oo aanu ugu talagalay macaamiisheeda oo ay kamid yihiin macaamiisha gobolka Saaxil ku nool. sidoo kale waxay shirkaddu maalin walba bixinaysaa lacag ah 190 milyan oo 90 milyan oo shilin taas oo maalin walba aanu bixino 1 milyan iyo 500 oo kun iyadoo ay guuleystaan maalin kasta 3 macaamiil oo ku guuleysta 1 milyan iyo 500 oo kun oo midkiiba ku guuleysto 500 oo kun oo sidaadii caadiga ahayd baad simkaarka Somtel u isticmaalaysaa sidaadii caadiga ahayd baad adeegyada e-dahab uu kamid yahay 4G uu kamid yahay 3G uu kamid yahay iyo dhamaanba adeegyada shirkadu ay bixiso taas baa shirkaduna abaalmarin idinku dartay oo abaalmarin la idinku siinaya haddii alla ka dhigo. Mid kamid ah dadweynihii bakhtiyaar nasiibkaasi ka qayb galay magaalada Berbera ayaa shirkadda Somtel uga mahad celiyay adeegyada ay u fuliyeen. Somtel 4G waan u baahnaa marka horeba internet-kan ka isticmaali jiray kaarkayga waa mahadsantiin 100% Somtel halka hore uga sii socdo. Bandhigan ayaa lagu soo qabtay gobolada galbeedka haatanna waxay shirkadu ku qaban doontaa gobolada bariga Somaliland. Cabdikariim Saciid Saalax, Home Cable TV, Berbera.